بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد caruuray kusoo dhawaada casharkeennii afraad ee ku saabsanaa inaan barano wax kastoon diinta islaamka uga baahannahay. hadda waxaan gelaynaa caruuray casharkeennii tarbiyada iyo barbaarintiina ahaa. waa casharkii afraad ee kusoo dhawaada. casharkeennii hore haddii aada xusiisataan waxaan idiin diray su-aalo aada ka soo shaqaynaysaan, su-aalo homework ah oo aada guriga uga soo shaqaynaysaan. waxaa yidhi qofkii kasoo shaqeeya waa qof fiican, qofkii kasoo shaqey waayana waa fiican yahay, laakiin aniga hadda ka jawaabaya. qof kasta dhegeyso. su-aasha koowaad waxay ahayd, markii aada suuliga galaysid lugtee hormarinaysaa? waa soo barana casharkeennii waa bidixda, lugta bidixda. markaad suuliga galaysid ducadee akrinaysaa? waa baranay allahumma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ithi. su-aasha saddexaad waxay ahayd, markaad suuliga kasoo baxdid lugtee soo hormarinaysaa? waa jawaabtu waa lugta midigta. su-aasha afraad waxa weeye, markaa suuliga kasoo baxdid ducadee akrinaysaa? duco gaaban aan idiin sheegay, midda dheer idiima sheegin, oo ah gufraanaka. lagu celceliya gufraanaka. su-aasha u dambeyda waxay ahayd, qofkii markuu suuliga galo aan kaadida iska hubin hadhow markuu dhinto maxaa ku dhacaya? jawaabtu waxa weeye, qabriga lagu cadaabayaa. ilaahay qabriga naguma cadaabo, waa inaan kaadida iska hubina. su-aalihii casharkii hore caruurey intaasaan uga soo jawaabnay. hadda waxaan gelaynaa casharkeennii iyo qisadii gaabnayd. maantay maxaan qaadanaynaa? waxaan qaadanaynaa cashar aada iyo aada u muhiim ah. maxaa yeelay casharadan adinkay idiin fiican yihiin hadhow inaad dadka ugu fiicnaataan, hogaamiyaasha adduunka noqotaan, sheekhyada adduunka noqotaan, dhaktarada adduunka noqotaan, aakhirana jannada aa gashaan. iyo waxaasoo dhan waxaan ku heli karnaa inaadnan waalidkiina dhibin caruurey, oo waalidkiina aadnan ku caasin, oo waalidkiina aa u fiicnaataan. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, waa waxa aada ku fiicnaa kartaan oo ah qof kasta sida la ogyahay dadka qofuu la saaxiiba. mathalan markaa wax baranaysid ardayaad saaxiib la tahay, waxaa laga yaaba qofba qofuu saaxiib la yahay. marka qofna qof xunuu saaxiib la yahay, qofna qof fiicanuu saaxiib la yahay. haddaad qof fiican saaxiib la tahay, qofkaa fiican maxaad ka helaysaa? aan casharkeennaan ku baranaynaa. haddii qof xun aa saaxiib la tahayna maxaa kugu dhici kara? casharka kale aan ku bara doonaa. casharkeenna maantay wuxuu ka hadlayaa saaxiibka fiican. maxaa yeelay inaan saaxiib ka hadalna maxaa keenay? qof kasta saaxiibbuu wax la bartaa, la socdaa. saaxiibaduna khatar badan ay keeneen. waxaa ilmaha iyo hooyadooda isku diray, waxaa ilmaha nolosha ka riday, waxaa ilmaha waxbarashadii ku riday, waxaa ilmaha shaqadoodii halmaansi, waa saaxiib kastoo. marka waa inaan saaxiibka fiican aan baranaa. qofka la saaxiibaysid maxaa ku bara kartaa? horta ilaahay aana noo sheego na amray inaan saaxiib fiican yeelano. qur-aankaana amray, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna waana amray. saaxiibka marka waa idiin sheegaya caruurey. qofkaa la saaxiibaysid calaamaad iyo tilmaamo lagu garto inuu fiican yahay ayaa jira. kaas fiicana hadda ka hadlaynaa, si aada u doorataan oo aadna waalidkiina u dhibin, oo aadna u xumaan, oo aadna waxbarashada u nicin. ilaahay marka hore wuxuu noo sheegay maalinka qiyaamo saaxiibada dhan inay cadow isu yihiin oo kala cararayaan, marka laga reebo ilaahay dadka ka cabsada. ilaahay wuxuu kaloo na yiri dadka runlowyada la saaxiiba. caruurey marka saaxiibkaaga runta ah ee fiican maxaad ku garanaysaa? haddaba su-aashaas jawaabteeda ayaan rabaa inaa ila barataan. saaxiibka aada la saaxiibaysid markaa iskuulka joogtid la saaxiibaysid
maaha saaxiibka xun oo gaaladii yaqaanaan. anaga saaxiibka fiican waxaan ka hadlaynaa qofka waxbarashada la saaxiibaysaan oo la sheekeynaysanayso oo la soconaysid. qofkaasi saaxiibka fiican maxaa ku garan kartaa? haddaba dhegeyso, qodobo tilmaamaan kuu sheegayaa. saaxiibkii tilmaamahaas aa ka weydid ka fogow, maxaa yeeley haddii kale dhibaa kaa soo gaaraya. saaxiibka fiicani waa midkii naftaadoo kale aad ka soo qaadaysid oo aadan iska ilaalinayn, aadan cabsi ka qabayn inuu ku khayaanayo, aadan aaminsanayn, sida naftaadoo kale aada ugu kalsoon tahay. macnaha waalidkaaga kuguma dirayo, waxbarashadaada kaama seejinayo, been kuma sheegayo, kuma khayaanayo, waxun kuma barayo. waa qodobka koobaad. labaad, saaxiibka fiican waa qofkii markii qalad kaa dhaco kuu cududaaraya oo kuleh waad qaldami kartaa, isi sax. wuu kuu cududaaraya, wuuna ku toosinayaa ho wuxuu ku leeyahy waxaasaa kaa qaldana istoosi, qaladkii kuguma sii wadaya. saaxiibka fiican markii ay qalad kaa dhacan wuu ku saxayaa, wuuna ku cafinaya, kuuma qabsanayo, waana ku toosinayaa. ceebtaada wuxuu leeyahy saas iyo saasaa kaa qaldana istoosi uu ku leeyahy. tilmaan kale, saaxiibka fiicani waa midka mala fiican kuu haya, wax fiicanuu kaa aaminsan yahay. haddii aad qalad ka geshid cududaaru kuu raadinayaa, wuxuuna leeyahay saaxiibkay qaladka uu iga galay uma uusan jeedin, kama ay ka ahayd, ku talagal kama ahayn, wuu leeyahy saaxiibka fiican. saaxiibka fiicani waa midka naftaada ilaalinaya oo daryeelaya, xoolahaaga ilaalinaya, sharafkaaga ilaalinaya, ilmahaaga ilaalinaya, oo aan ku khayaanayn. xoolahaaga ma khayaanayo, naftaada ma khayaanayo, caruurtaada ma khayaanayo, sharaftaada waxba kama sheegayo. kaas way saaxiibka fiican. caruuray ogaada, maxaa yeele waa waaweynaa doontaan adoo cilmigan bartay. saaxiibka fiicani waa midka kula jooga markii aad dhibaataysan tahay iyo markaa barwaaqaysan tahayba. markii aad wax haysatid kaliya saaxiib kula ma ahan, xataa haddii aad wax la-aan tahay waa kula saaxiib, kuma nacayo. markaa faraxsan tahayna wuu kula faraxsan yahay, markaa kurbootidna wuu kula kurboonaya, wuu kula murugoonaya, wuu kula dhibtoonaya. markaa wax haysatid wuu kula joogaa, markaada waxba haysanna wuu kula joogaa. markii lacag la-aan kula dhacda kaama dhuunto, markaa lacag haysatidna saaxiib kulama, yacni mar kasta buu saaxiib kula yahay, kuguma danaysanayo. saaxiibka fiicani waa kii naftiisa kaa hormariya, oo hadduu arko adigoo wax kaasii yihiin asagaaba ku hormarinayaba. inuu adiga wax kuu taro ayuu isku dayayaa, weligaana wanaagu kula jecelyahy. saaxiibka fiicani weligaa wanaagu kula jecelyahy. caruuray ogaadaa. saaxiibka fiicani waa kan si fiican kula taliya, oo markii uu ceeb iyo qalad kugu arku kula talina, saan ha yeelin, salaada ha ka tegin, waalidkaaga ha ku xumaan, been ha sheegin, waxba ha khayaanin, iskuolka ha u goyn, itixaanka iska diyaari, wuu kula talinayaa, ku dhiirigelinayaa. waa ku dhiirigelinaya wax wanaaga ah, uu kugu dhiirigelinayaa. saaxiibka fiican waa kii markaa u timaadid kusoo dhaweeya, meel fiican ku fariisiya, waxa weeye hadduu kula kulmo ku salaamo, salaamtii islaamka kugu salaama, waxa weeye markay xoogaad wax kaas yihiin danahaaga kuu hagaajinaya. saaxiibka fiican waa midka markaa ka maqan tahay kuu duceeya, ilaahay kuu barya, ilaahow walaalkay khayr sii, ilaahow cafi, ilaahow dembigiisa dhaaf leh, adoon dhihin ii duceeyo kuusoo ducaynayaa. saaxiibka fiican waa midka ilaahay dartiis kuu jecel oo aan dan kale kugu danaysanayn. saaxiibka fiican mid aan kugu danaysanayn wey, ilaahay dartiisa kuu jecelyahy, laakiin xoogaa lacag u kaa cuna iyo waxa aan waalidkaaga kasoo khayaanta iyo waxa aad soo dhacday iyo dan kuguma wato, waa ilaahay dartiisa kuu jecelyahy. saaxiibka fiican. saaxiibka fiican waa qofka wax kuu faa-ideeya. markaad la kulantid aqoonuu kuu faa-ideynayaa, waxbarashuu kuu faa-ideynayaa, waxbuu kuu sheegayaa, wax fiicanuu kaaga sheekeynaya, wax xun kaagama sheekeeyo, sida wax loo qayaana kaagama sheekeeyo. mar kastaba cilmi iyo horumar, ama cilmi aakhiro ama mid addoonyo aad ka faa-ideysa saaxiibka fiican. u fiirso tilmaamahaas ya qofkaa la saaxiibka tahay waxaan ka fiiri.
akhlaaqdaadu hagaajinaya wuxuu ku leeyahay akhlaaq fiican aan nala ka rabaa haddaan waaweynaano, haddaan anagoo been sheegayna, anagoo wax khayaanayna, anagoo daroogo cabayna, anagoo waxadayna, anagoo waalidkan ku caasinayna, anagoo xumaanayna, haddaan weynaano hadhow balaaya nagu dhacayduu ku leeyahay. markuu ku saxayaa saaxiibka fiican waxbuu kuu faa'iideynayaa. saaxiibka fiican maxaa ku garan kartaa? u fiirso saaxiibkaaga inuu fiican yahay maxaa ku garan kartaa? waa midka markaad dadka joogtid la joogta ku faanaysid anigu hebelaan saaxiib la ah, laakiin midka markii aad iska qarinayso isleedahay ama lagugu ogaadaa kaas ha sheegin, saaxiib fiican maahan kaas. midka aad ku faanaysa o hebel sheekh hebel ama qofka hebela ama wariyahaas ama qofkaas ama qofka wax barta o saaxiibka wey waa ku faanaysaaba, waa qofkaas saaxiib fiican wey. laakiin qofka aad xishoonayso isleedahay ama lagugu ogaada ama lagugu sheega o kaa saaxiib fiican ma iska ilaali, khatar wey, ka carar. saaxiibka fiican waa midka haddii dhib ku soo gaaro ama lacag la-aan kugu dhacdo ama wax kaasi noqdaan aan kaa naxayn, oo macnaha isma dhahayo o maanta wuxuu ku weydiina ama wax ku weydiistaa ama xoola ku weydiya isma dhahayo, ee wuxuu leeyahay mawaxaa wax miyaa weyd ha anaa ku siina anaa kuu qabana, inuu wax ku siiyo wuu ku faraxsan yahay, inuu kuu adeego ku caawiyo ku faraxsan yahay. saaxiibka fiican waa kan waxa naftiisa uu la jecel yahay wanaagsan adiga kula jecel. saaxiibka fiican waa midka carabkiisa iyo gacmihiisa dadku ka nabad galaan, ma uu xanto, ma caayo, ma dilo, iskuma dirdiro, ma dhaco, ma khayaano. qofka dadku ay ka nabad galaan qofkaasaa saaxiib fiican ah. saaxiibka fiican been kuuma sheego, beenna kaama sheego. hadduu qofku been kuu sheego ama uu been kaa sheego saaxiib fiican maahan ogo. caruurey iska ilaaliyaa. caruurey markaa intaas waxaan casharkeennii qodobadaas fiiri, qofka aad saaxiibka la tahay ka fiiri, haddii qodobadaas uu ku dhaco saaxiib fiican maan. haddaba khulaaso yaro kooban aan casharka kasoo qaadanayna. ko, qofka la saaxiib tahay muxuu yahay? waa inuu qof ahludiina yahay oo iimaan leh, wanaagsan, dhaqan wanaagsan, diinta qof ku toosan, salaadii ma ka tegayo, meelo xuxun inta ku mashquulo salaadii iyo soonkii iyo wixii o dhan kaama tagsiinaya, isaguna kama tegayo. waa qodobka koobaad khulaasada. qodobka labaad, saaxiibka fiicani waa kan ilaahay dartiis aad saaxiib u tihiin, ilahay dartiis aad saaxiib u tihiin. saaxiibka fiicani qodobka saddexaad waa midka si fiican kuula taliya, wanaagana kugu caawiya. qodobka saddexaad, saaxiibka fiican waa qofka ballanta kuu oofiya ee aan ku khayaanin, ee aadan ka cabsanayn inuu ku khayaano. saaxiibka fiican waa midka aan ku khayaaneyn. saaxiibka fiican waxa weeye qofka ku caawinaya, ku garab istaagaya, saaxiibtinimadkiisa aada ku xoogeysanaysid. marka caruurey intaas waa khulaasadii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi saaxiibka fiican qofka la joogaahi wuxuu la mid yahay qof wax udgaayo carfoon ka shaqeeya oo baraafuun gada ama catar gada qof la jooga, ama wuu ku siinayaa ama waa ka iibsanaysaa ama waa ku hadiyeynaya ama caraftiisa helaysaa. sidoo kale qofku saaxiibkiisu ku dhaqan noqdaa. caruurey haddaba waxaan rabaa inaan idin sheego saaxiib yaa ugu wanaagsan. qofka ugu wanaagsan saaxiibka ee tilmaamahaas laga helay waa kee? ee intaasoo dhan saaxiibo badanaad yeelan kartaa, laakiin saaxiibka ugu wanaagsan waa kee? saaxiibka ugu wanaagsan waa waalidkaaga, hooyada iyo aabaha inaad la saaxiibtid oo ku xirantid wey. maxaa yeele ayaga kuma khayaanayaan. hadday ku khayaanayaan kuma soo koriyeen, wax kuma siiyeen, waxbarasho kuma diran. marka saaxiib fiican waalidkaaga la noqo, kabacdi saaxiibada kaloo fiican saaxiib la noqo. haddaada waalidkaaga saaxiib la noqona ka dhowmatid, ogow qofkaas aad saaxiibka la tahay dhulku kula goynay hadhow, macnaha noloshuu kaa ridaa. intaas waxa weeye casharkeeni intaas saaxiibka ku saabsanaa uu ku dhammaaday. qisadii yareeda idiin sheegaya marka oo saaxiib ku saabsan. caruurey
qisadaas u fiirsada. wiil ayaa waxaa la yidhi saaxiib buu lahaa. markaas ayaa saaxiibadiisii waxay yidhaahdeen hooyadaa lacag ha ku soo siido, lacagaa meelahaas ku aadno, lacagaad wax kusoo gadato, lacagaa kusoo baashaasho, hooyo kasoo qaado. hooyadiisu u yimid ayadoo cuntadii u karana u shaqaynaysa. hooyo lacag isii. maandhow lacag ma hayo. hooyo lacag isii aan waxaas iyo waxaas kusoo gato, waxaas aan ku sameeye lacag isii. hooyo lacag ma hayo ay tiri. muxuu sameeyey? waa tegey buugu soo qaatay, lacagu soo qortay, lacagaan u baahana waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas, xisaabuu soo qortay. lacagtaasaan rabaa hu yiri, waa ina isidaa. okay, wuu xisaabtamay sooma, hooyadii la xisaabtamay. hooyo waa fahantayna, keen guriga fadhigan tegayna waa xisaabtamayna. hooyo way fariisatay, way la xisaabtantay. waxay tiri maandhowhaadha, caloosha markii aan kugu siday dhibkaasaan kaa soo maray, markaan ku dhalayay dhibkaasaan kaa soo maray, markii aad dhalatay dhibkaasaan kaa soo maray, intaan ku nuujinayay dhibkaasaan kaa soo maray, markii aan ku korinayay dhibkaasaan kaa soo maray, markaa yareed habeenkii ma seexa jirin, adigan ku hagaajinayay, adigan ku xalaanaynayay, markaan ku koriyey wax ku baray. intaasay sheegtay. imisaa lacag ku bixi karta? imisa 100 oo kun. wax badan wey. markaasuu wuxuu is yiri waa isku yaryaraaday. maantay hooyo xisaaba furtee, maantay malaayiin lacagaa lagu qabsan rabaa, xisaab badana kugu baxday. hooyo maxay tiri? maandhow intaasoo lacaga qarash dhana kugu baxay, waxaas aan kuusoo qabtaan dhanna bilaash wey tiri. hooyo kaama rabo hooyo, bilaash wey. wiilkii inta isku naxay oo ogaado hooyo lacagta iyo qarashka iyo dhibkay soo geliday iyo wax asaga uu ka rabo, uu hooyo madaxa ka dhunkoodo yiri hooyo qaladaan galay, inaan kula xisaabtamo ma ahayn, inaan ku dhibo ma ahayn, saaxiibadaasna way qaldayeene, adiga saaxiibkayga runta hooyada ii roon iga fiican qof kasta. marka ogaada caruurey, qof hooyada iyo aabaha kaaga fiican ma jira. la saaxiib, hana dhibin, hana khayaanin, hana xadin, hana sirin, beenna ha u sheegin. qof kasta oo kugu dirana ka fogow. insha allahu tacaala su-aalaha idin weydiinaya waxa weeye, saaxiibka kuugu fiican ee kuugu runta badan waa kee? saaxiibkaaga haddii uu salaada iyo cibaadada uu ka tago, maxaad samaynaysaa? saaxiibkaaga haddii uu khayaano ama maaragtay been ama isku dirdir uu ka shaqeeyo, maxaad samaynaysaa? saaxiibkaagu hadduu waxbarashada iyo iskuulka iyo inaad u googoysid uu kugula taliyo, maxaad samaynaysaa? intaas su-aalood qaata, kasoo shaqeeya. intaas iyo kulansi dambe insha allahu tacaala sidaan ka codsanay waalidiinta, waxaan u baahanay fikradiina iyo taladiina, waxaan ku darayno, waxaan ka jarayno, iyo haddii xataa wax inaan saxno ay tahay, waxaad noogu soo dirtaan emailka hoos ku qoran. wasalaamu calaykum wabilaahi towfiiq.